وايا سؤاشيدا waxa waaye walaalkay Abraham masiixiya tahay dabcan waxaad aaminsan tahay Ciise al-Masiix inuu Ilaahay yahay Soomaan okay sidoo Ilaahay ku yahay calaashan ma asaga kaliya Ilaahay ah mase asaga iyo aabaha isku mid waay mase labay kala yihiin waa isku mid hal qof ay isku yihiin miya hal bay isku mid yihiin hal bay isku yihiin hal la isku yihiin marka waaxid fi jawhar jawhar ahaan hal ay isku yihiin waa ku fahmay okay bible wuxuu noo sheegaa Ciise iyo aabaha inay laba kala yihiin laakiin ustaadi nala wadaag waxaa noo akhrisaa ustaad Najiib ma joogtaa waxaa noo akhrisaa kitaabka okay waxaa noo akhrisaa kitaabka Yohana cutubka 14 qormadiisa 28 maxaa tiri John hay John 14:28 14:28 نعم دي آد ما تسنتا أستاذي أيضا وحين نوشيجي نبي عيسى يا أبا عمني إن اللي بشي أو كلاوين منا أويها منا أويريها آيته ما يوافق سنتا أستاذي هيك هذه جون maxaa tiri ma soo bilmo soo bixina John 14:28 misoo qaban karta qabo aniga waa sii raadinaya waa kula socda laakiin qabo John 14:28 walaal John 28 ma jawaabi karaa mumkin ها كجواب يا هبري مايا walaalka bes aan u dhaafaynaa xogaa asaga su'aal weydiinay su'aalana asagay ku wajahanyiin hadhowti su'aalaha oo walaalaha kaleeta idinka idin dhaafi doona insha Allah aniga saddex su'aal asaga jawaabtiisaan rabaa habaryar anigoo ku ixtiraamayo adii hadda ka hor su'aal waa isweydiinay hadhowtina waa isweydiin doonaa dhimala laakiin saddexdan su'aalood walaalka ayaan la damacsanaa insha Allah okay masbuut ma ogasha Abraham ما كجوابي كرتا ما كجوابي كرتا دي اوكي كمان مي ogasha just waa shay mujarrad aad u yar weeyaan habaryar markii oo asaga uu ka jawaabi waayo waa isku dayi kartaa laakiin hadda asagan ka sugaa jawaabta adigoo mahadsan mase uu ku cusub yahay asaga adiga mucallimadii ah si aan adiga su'aalaha ku weydiin meeshan macallin iyo macallin la'aan ma jiro kamaan okay waaya marka asagan ka war sugaynaa okay asagan hadda su'aasha weydiiyay walaalkay waa isku cusubnahay asagan cabaar waqti wada qaadanayna kadibna adiga waa ku sii doonaa insha Allah su'aalo badan aan qabnaa waa ku sii doonaa habaryar waa mahadsantahay okay Abraham qadka ma ka xun maya qadiga ma xumo ku soco okay markii la dhaho aabe marka la yiraahdo markaad aragtaan hata masiixiyada dadku markii ay rabbiga ay maaragtaa worship gareynayaan ama rabbiga maaragtaa yani ay amaanayaan oo kale yani crosska la bixiyo marka uu tahay wajiga the father oo wajiga hortiisa kan ugu horeeya the son oo ah qalbiga dhexdiisa and the holy spirit waa waxa weeyaan ruuxda garbaha naga saaran weeyaan kowdi sida ciise masiixi sida islaamku og yahay oo kale yani ruuxdii ilaahay weeyaan ma aha ilaahay inuu qof la galmooday ma aha maaragtaa in yani physical yani si yani sida anigi aan ku dhasho kale ama adiga aan ku dhalato inuu ku yimaado ma aha laakiin waa ruuxdii ilaah weeyaan quraanku wuxuu sheegayaa in ruuxa la xulay ciise ruux Allah waa ruuxdii ilaahay weeyaan marka ruux waa garan kartaa ruux waxa la arki karo ma laakiin wax la dareemo weeyaan marka aaba ma jiraa nacam yani wiil ma jiraa nacam ruuxda ilaah uu nafsiyay oo asaga maar la socotay ma yahay oo laga uuraystay nacam saddex ilaah ma yahay la waa hal ilaah oo saddex form ah oo laakiin hal ah hal ilaah baa jiro siduu leeyahay waxaan ahay aabihii Jacob Isxaaq and Abraham oo ah saddexdii laga keenay ibraahimida ama waxa la yiraahdaa Ibrahim yani diimihii Abrahamka I hope yani intaasna ku ekay laakiin if you need more haddii aragtidna dib ayaan u gali karnaa laakiin ilaah waa hal habaryar anigoo ku ixtiraamayo hay su'aasha aan weydiiyay jawaabteeda maba ahan taas ani su'aashan weydiiyay waxay tahay ilaahay ciise miyaa wuxuu ugu yiri haa
hal jawhar waayo igu yiri luqad wuxuu igu sheegay ay ku hadlaan falaasifada muslimiinta oo aan aad u fahmayo ama mutakalimiinta ay ku hadlaan jawhar waxaa la yiraahdaa shay hal jismi ah ayaa la yiraahdaa waa ku hal sheegay mar habar yar aan ku hal dhamaayo waaye okay habar adigoo mahadsan aan ku dhamaayo okay marka halay isku yihiin uu yiri maadaama hal shay ay isku yihiin haddii la dhaho hal shay kala weynaaday illogically waa tanaaqud adiga ayaa kala weynaatay suurtagal ma aha kamaal halkaas ka sii wad ma fiish mushkil habar marka تفضل hal shay ayaa laba u kala infisaala dhacayo adiga dabcan waa fahmay luqa alcarabiya infisaala dhacayo labay u kala baxeen laba markay u kala baxeen aabaha weyn ciisana aabaha uu ka yar yahay sidaas ma rumaysanta adiga bibalka sidaas uu noo sheegay inay laba kala yihiin kala madax banaan aabuhuna oo weyn yahay ciisana uu yar yahay sidaas uu noo sheegay انفصال horta kelmadaas waxa isticmaala dadka mulxidiinta ah oo ah infatijar yani waxa maaragtaa saas u qarxay okay anigu taas waa infijaar mush infisaal okay marka yani ma saddex miya laba maaha waa saddex aniga saddexda maba ka hadlayo ruuxda maba ka hadlayo habar yar ما dhibaatada waxa waaye masiixiid haddii aan nahay waxa alquduuska caafinin ruuxda quduuska ما انكرسني ما بينكرسني laba الروح nin habar macaan I love you so much waxa dhadaa saddex ilaa in one laba la amaale wax waxay yar ku qoran tahay habar yar amaal wax yar okay waxaan u laabanaynaa maxaan ku idhahdaa su-aashii hadda خلاص suga jawaabteeda waan ku siiyo marka hadda maxaan ku idhahdaa amaal waa hay habar remote ka noo gal marka uu soo laabtay haya ku soco isla cutubkii hadda aayadda hasha aayaddaa soo qaadatay maahane maxaan ku idhahdaa kulli bibleka maxaan ku idhahdaa waxaan u malaynayaa in asaga uu isfasira sida qur-aanka asaga isfasirayo isu fasiro oo uu isu macneeyo haddii wax yar aayadda hadda adiga aad soo qaadatay maahane aan gadaal u laabano cutubkan 14 aayaddiisa 8 aan kasoo bilowno qaala lahu filip yaa sayidu arina alaba wa hada yakfi lana قال له عيسى أنا معكم ما فهم عيسى اللغة العربية كل هذا الوقت ومع ذلك لا تعرفني يا فيليب ما شاسي وحوليه هي من فيليب لي وحوي دي سيدونا تصي أبها تاس أيانا كافسة عيسى وحوليه هي أنا معكم كل هذا الوقت أنا أنتاس إذن لجوجي ومع ذلك لا تعرفني يا فيليب يما قرني سيد مياه صبحي cutubka 14aad aayadii 8aad meesha hadda aad aayadda 8 ay weydiisay 8 u laabo okay aan sii wadno man ra'aani qofkii arka ra'a al-aba فكيف تقول أرنا الأب ألا تؤمن أني في الأب والأب في الكلام الذي أقوله لكم لا أقوله من عندي بل الأب هو الذي يقيم في ويعمل أعماله آمين صدقوني أني في الأب والأب في اللغة العربية صفة بوتقانا كمان أو على الأقل صدقوني هذا بسبب المعجزات نفسها بإحياء الموتى وعلم أمور الغيب يوحي لمدة حسبه أقول لكم الحق سوك من يؤمن بي يعمل الأعمال التي أعملها بل ويعمل أعظم منها لأني ذاهب marka intaas kaga jawaabay su'aashaada ustaadi jawaab ma u noqonaysa tanaaqud ay bana tusinayba waxay tanaaqud nagu tusinay aabahan ku jira anigana aabaha igu jiro aqliyan waa shay tanaaqud ah logically waana meelaha bibalka oo logiga uga hor yimaado haddaan ku dhaho sanduuqa dharkayga sanduuqo ku jira sanduuquna dharkayga ku jira waa tanaaqud nafs alwaqti hadalkaas mumkin ma noqon karo wax suurtagalaya ma waa shay mustaxiil ah oo aan dhici karin sidoo ku dhici karin habar yar ii kaad wax yar wiilka la sheekaysanaa dulaak dhar baa ku jiro dulaakana yani muftax buu leeyahay habar yar muftax ma kaad leeyahay okay aan ka gudbo walaalkay marka arrintan caqliga ka hor imaana waa shay mustaxiil ah waa circle oo haddana square ah ama muthalath oo murabbac ah fi nafs alwaqti ما يمكن هو مستحيل سيدا سلا مد ولا كمان وحيا ربو maxaan ku iraahdaa iga raaleeyahay waxaan ku leeyahay cilmiga lahuutiga horta
sida xataa caqiidada muslimiinta ay aaminsan yihiin hadda kutubka caqiidatu daxaawiya markaa laa tudrikuhu alawhaam walaa tudrikuhu alafhaam adiga waxaa rabtaa maxaan ku yidhahdaaye in maskaxdaada aad ku soo koobto cilmiga lahootiga ah oo aad maxaan ku yidhahdaa bikulli diqa aad maxaan ku yidhahdaaye laabudda an afham bikulli diqa ustaadi ma dhici karta taas ilaahay maxaan ku yidhahdaa waa kan kownka abuuray waa kan fahankaaga abuuray se adiga fahankaa ugu fahmi kartaa asaga ustaadi intii asaga uu sheegay ayaan rumaysanaynaa dhegeyso aayadahan waxay noo sheegeen iskama hormaaneen aayadahan waxay noo sheegeen maya aayadahan waxay noo sheegeen ciise wuxuu leeyahay ciise filip baa wuxuu weydiiyey aabbahana tusi taasaa nagu filan markaasaa ciise wuxuu yidhi qofkii anigii i arkaa aabbaha wuu arkay see u leedahay aabbahana tusi miyaadan rumaysnayn aniga in maxaan ku yidhahdaa i aabbaha aan mid nahay waa igu jiraa markuu leeyahay waa mid wuxuu ka hadlaayo maxaan ku yidhahdaa ay sanduuq dhar la geliyeen waa igu jiraa waa wax la fahmi karo fiir ustaadi ana fiya waa inaan mid nahay waa sidee mid ku tihiin baa la yidhi marka aabbaha inaad samayso ma aragtid qur-aankana waxaa ku qoran isu marka waa u soo wadaaye maxaan ku inaan mid nahay habar aniga aabbaha ayaan ahay aabbahana waa aniga ama ugu yaraan rumaysta isugade sababtaasi daraaddeeda ayaa mucjizaad maxaan ku yidhahdaa mucjizaadka aniga aan sameeyo iyo arrimaha aniga aan sameeyey xataa ma ku garan weydeen buu leeyahay ustaadii waa mahadsan tahay caqiidatu daxaawiya waxa uu ka hadlaayo ma aha wax oo mustaxiil ah lama fahmi karo laa tudriku alafhaam walaa tabliqu alawhaam xayun laa yanaam markuu ilaahay sifaynay daatada ilaahay waay daatada ilaahay sida ay tahay waxaan ka hadlaynaa maxay tahay soo ilaahay soo ma ukaad ustaadi hadda wax yar inaan hadlaan rabaa min fadlag daatada ilaahay waay waxa uu ku leeyahay laa tudriku alawhaam wahmi laguma haleeli karo iyo faham amaa ma uusan dhihin caqli laguma gara karo teeda kaleete imaamu daxaawi ma ahan hadalkiisu aayad quraana waa inaad fahamtaa ayada naftirkeeda oo fahamka waaba caqliga shaqadiisa soo maahan maya ustaadi sidaas ma ahan fahamkaaga iyo caqliga labay kala yihiin waxaad fahmi kartaa wax qaldan waxaana fahmi kartaa wax saxan ama caqligu marna ma qaldami karo caqligu shayga mumkinka waa mumkin shayga mustaxiilkana waa mustaxiil marka hadda qormadan aad ii sheegtay hal mar iga raalli ah waa radina markaan radiyo qormo ayada lamid ahoo ka darnaa kuu sheega waana kugu qaadanaa midaan logically haddii lasoo hordhigo way ku fashilme way ku dhacday hadduu dhihi lahaa aabbaha igu dhex jiro aniga doodanba maba ka keeni lahaynba oo waxaan dhihi lahaa aabbaha aw uu ku dhex jiraa laakiin inuu yiraahdo aabbaha igu dhex jiro min nafsi lwaqtina anaa aabbaha ku dhex jiro hada shayun laa yumkin huwa mustaxiil caqlan waa xeer logic oo jabaya waay haddii aan ku dhaho aniga gurigaan ku jiraa gurigana anigoo igu jiraa min nafsi lwaqti wax suurtagal ah ma ahan marka caqlan markii loo bandhigo oo waa shay mustaxiil ah waa 4 gees oo isku waqtigaasna 3 gees ah ma dhici karo waa shay mustaxiil ah kasoo tag marka dhibba ma balahan waa kuu salimay waxaan kuugu salimaa ciise wuxuu leeyahay isla kitaabkan aad noo aqrinayso 14 qormadiisa 20aad ustaad najiib oo noo aqri tanna marka ka jawaab insha Allah kitaabka yuxanna cutubka 14aad qormadiisa 20aad okay qormadanaaba ka daranba hadda adiga ma rumaysantaa inaa ciise ku dhex jirto adaada ciise miyaa ku dhex jirtaa ustaado ciise wuxuuna leeyahay waxaad gara doontaan inaan anigu aabbaha ku jiro aabbuhuna igu jiro idinkuna aad igu jirtaan anna aan idinku jiro hadda marka annaga ciise maan ku dhex jirnaa gudaha kaaga jawaaba aayadaas aayada ka dambaysa ogtahay baybalka in hal aayad lasoo qaato oo la jaro ma aha aayadda ka dambayso ma yaqbal aniga caawa hal aayada i weydiiso waana kaaga jawaabayo qofkii aniga hal aayad soomaada weydiinin ustaad dhageyso qofkii aniga hadda waa ku xiri kartaa aayadaha kale kuma aanan diidin qofkii aayadda ka dambaysa fasirayso waxay leedahay aniga i aqbala oo wasaayaadkayga iyo dardaarankayga maxaan ku yidhahdaa sameeya kaasi waa ijecel yahay kii ijecel maxaan ku yidhahdaa kii aniga ijecelna aabbahayga ayuu jecel yahay anna asaga waan jeclahay waa isku dhamaatay waa fasiran tahay soomaa marka jacayl iyo dhex ku jiro baa laga hadlaya jacaylkaas oo laga hadlayo
habar yar maa noo kaadisid may wax yar wallahi waan saacado hadda habar yar ee muslimiinta dhan way aamusan yihiin soo ma arkoosid de hoosta adigoo naga hoosta raali waxa la ii soo qoray arki maysid habar yar muslimiinta dhan way aamusan yihiin masiixa marka hadalkaasi uu lahaa maxaan ku idhahdaa okay aniga hadda su-aashaan ku weydiinaya jirkaasi maxab buu ka hadlay aayadda ka dambaysuu sheegay jacayl buu ka hadlay fiiri aayadda ka dambaysa inay aayadda koobaad fasiraysa adiga maa noo sheegaya mise baybalkaa noo sheegaya baybalkaa sheegayo baybalka miyaa wuxuu leeyahay aayaddan hadda waxay fasiray aayaddii ka horreysa baybalka miyaa sidaas dhahaya haa alwacdu biirsaali ruuxi lqudusi mawduuca aad ka hadlayso waxaa cinwaan u ah maxaan ku idhahdaa ballanqaadka maxaan ku idhahdaa ruuxa quduuska in maxaan ku idhahdaa lasoo diri doono ayaa cinwaan u ah waxa laga hadlaayo oo dadkan xiriirinayo oo isku xiraayana maxaan ku idhahdaa dadkii aanan ku dhihina waxa uu ka hadlaya masiixa oo isku xirkan uu sheegayana waa ruuxa quduuska oo annaga naga dhex shaqaynaya waa ku fahmay ayadana waa kaaga gudba habar yar noo kaadi maashaa yani waxa weeyaan waa malaa'igta labada garab saaran islaamku waxay aaminsan yihiin in yani acmaalkooda ilaahay u geyso amaalay maa noo kaadi sida habar yaray laba qof laba nin oo ragaa nahay kamaalow adigana xagga la soo jeeda anima ii jeedid aanadi اوكي خلاص ايه بالعين اثنين يلا waayahay ustaadii hadda marka waxaan rumaysan tahay ciise inuu ilaahay ku jiro ilaahayna ciise ku jiro soo sidaas ma ahan wax inuu ku jiritaan ma aha inay mid yihiin baan rumaysanahay walaalle mid ma ahan waxayse mid ku ahayn waa mid hal xabay isku yihiin miya haye waxaa noo akhrisaa majiidow kutubka falimaan rasuulada cutubka 5aad qormadiisa 217 miya ama 56 noo akhri cutubka falimaan rasuulada kitaabka 7 qormadiisa 57 noo akhri hadda hal mid ay isku yihiin aad leedahay anigana waxaan ku dhooyaa labay kala yihiin 756 noo akhri falimaan rasuulada 56 okay wiilka aadanaha oo taagan midigta ilaahay haye hal mid isku yihiin marka hadda mise waa is dhinac joogaan dhegeyso waxa laga hadlayaa maxaan ku idhahdaa midigta ilaahay fadhiya adiga waxaa ku wareertay maxaan ku idhahdaa jirka iyo maxaan ku idhahdaa iyo ruuxda jir ma ka sheekeynayo walaalkay waxa meesha fadhiya la sheegay ciise waxa igu tiri maya dhegeyso ilaahay halay isku yihiin abuu masiixa waa inuu sarakacay waa isku raacsanahay sax ama hal la dilo ama maxaan ku idhahdaa ama yaan la dilin waa rumaysanahay hadi qadiya uqraasa maya midigta ilaahay waxa fadhiya la sheegayo waxa laga hadlayaa waa jirka ama ruuxa waaxid waa jirkaas yaa iskale jirka masiixa waxa laga hadlayaa okay jirka masiixa wuxuu fadhiyaa midigta ilaahay soo maahan okay markaas jirkaas masiixa ma ku dhex jiraa mise uu iska siiba sida dharku isaga siibay hadda maxaa su'aalaha aa weydiinaysa qaabkooda kamaalow shweeyo alaashan adiga waxaad tiri moogtaa jirka masiixa waa waxa ilaahay dhinaciisa fadhiyo dhegeyso waxa midaysan oo laga hadlaayo waa ruuxda okay ilaahay ruuxuu leeyahay miya ya waxa laga hadlaayo waa jawharta waxa laga hadlaayo waxa midaysan adiga ilaah kuma u taqaana horta هذه قد يقرأ إلهي الروح ميو ليه أكتادا ما أديت محاو تقانا إلهي ما هذا السؤال شان كويديها كبودين إلا عودة ما يسؤال بودين ما هذا واحد السؤال اللي راضي واجب ما واحد رتي محاو كذا إلهي أنا أركته إلهي أنا أركت مية رتيها بيبلك إلهي جرلي أو محاو كذا يميل سو تاجن أو الأركاي مية محاو كذا إلهي وتقاني بيبلك بس إذا ساكو قرنه هي حاجة قرنتها هي كتاب كزبور الدين نوغل ماجدو قرمدة 8 اللحات waxaad ka bilowdaa 5 ka bilow maya sabuuradii cutubka 16aad qormadiisa 5aad ka bilow walaalka maba ogaba ilaahay inuu jir weyn leeyahay oo bibalkana uu sheegay marka kamaalo ya hadlay habar yar ma noo kaadi subhan allah ku siiyo habar yar waxa noo kaadi alla kamaalo aniga caaw maxaa iga boodboodaysa miirka rabaa habar yar laba qof aan sheekaysanayna ma fahamta markuu ila sheekaysanay waa aamusnayd markaan la sheekaysanay maxaa soo dhex galgaloosaa way 18 akhri ustaado 18 sabuuradii 18 ma joogtaa cutubka 6aad ka bilow qormada 6aad ka bilow
walaalka hadda wuxuu yidhi ilaahay maba la arki karo oo jir ma ahan baybalkan wuxuuna leeyahay ilaahay waa la arki karaa ku soco marka okay ilaahay dhagow leeyahay kow haye okay waa mahadsantahay okay walaalkii hadda wuxuu yidhi ilaahay lama arki karo oo ruux waaye baybalkan wuxuu noo sheegayaa ilaahay markuu xanaaqay sankuu qaaq ka sii daayey afkana dabaa ka shidmay calaashaan dhuxul meesha tiilayna way shidmatay kadibna wuu soo degtay naagtii jannada baalasheeduu soo koray xanaaq dartiis dhulka dhamuu gilgilay mugdigana wuu ku dhuuntay samooyinkana wuu soo foorariyey marka ustaadii baybalka wuxuu noo sheegayaa ilaahay horta inuu dhaga leeyahay oo wax ku maqlo qaylada markuu xanaaqana sanka uu qiiq ka sii daayo afkana dhuxul ka keeno oo naagta jannadana oo fuulay oo ku biibay marka cagana wuu leeyahay marka adigana waxaa tiri ilaahay maxaa la yidhaha jismi ma ahan kitaabkii kaleete oo falimaan rasuulada cutubkii 7 qormadiisa 56 nabi ciise ayaa ilaahay ag fadhiistay okay su-aashaydu marka waxay tahay hadda waxaan soo caddeeyey inuu ilaahay jismi yahay ilaaha baybalka inuu jismi yahay ciisena uu ag fadhiyo hadda marka ma rumaysatay inay jiraan laba shay oo is ag fadhiya oo laba jismi ah baybalkana ku qoran mise waa diidan tahay haddaad diidan tahay qormada almar haddii aad diidaan qormada aad ku diideen oo baybalka ku jirta isiiya hadday qormadaas ka hor imaato qormadaana labadiina qormo way iska hor imaane kitaab iska hor imaanayana kitaab ma dhihi karo wuu yahay xataa haddii la dhaho laakiin anigu ma dhihi karo sababtoo hadalka ilaahay iskama hor imaado kow haddii aad qormo aad weysiin fahamkiina iyo kun iska hor imaad baan hadda kaa tusinayso maa kaaga maya waxba igama aadan tusin hal xaba xataa igama aadan tusin hadalkayga ma dhameeyo waxaa ku wareegatay maxaan ku yiraahdaa ustaad hadalkayga ma dhameystaa waxaa ku wareegatay adigoo mahadsan hadalka ma idiin soo dhigaa meyga habar waa kuu soo dhiga maqlaynaa okay ha waa mahadsan tahay hal daqiiqan kuugu soo kooba walaalka wuxuu dhahay adigana ay tiri ilaahay ruux waay lama arko koodoo wuxuu yiri ciisa ilaahay ku dhex jira ilaahayna ciisa ku dhex jira waxaan iri logical waa shay qalad ah waa anigoo ku iri gurigan ku jira gurigan anigoo ugu jira haddana walaalkay waa u sallimay waxaan iri waa kugu qaatay xataa ayadoo xeer caqli aan jabinayno ilaahay caqli laguma fahmi karo iri waa ka yeelay haddana waxaan u keenay qormo dhahaya ciise idinka ku jira hal mar habar yar yeelay ma haday ku qoran tahay la tudri hal mar habar yar ma dhameeyo hadalkayga halkii daqiiqo haddii adigu wax dhaliilayso habar yar halkayga daqiiqo ma dhamaysta anaa meega ku siinaa si toos aad u qaadanay may kamaalo habar yar markaan kuu dhameeyo fiiri amaley markaan kuu dhameeyo habar yar aan is dhegaysan adigoo mahadsan markaan kuu dhameeyo qaado hal daqiiqo lee codsaday hadalkayga dhammaan ku soo koobi raba kadib markaas ta'wiilkaaga waa dhegaysanaa marka waxaan u keenay qormo dhahayso ciise oo dhahayo anigana ilaahayaan ku jira ilaahayna anigoo igu jira idinkana waa igu jirtiin anna idinkaan idinku jira Yoxana 14:20 markaas wuxuu yiri wuxuu fasiray wuxuu ku fasiray jacaylka aayadda kala fasirayso yiri ayadana waa u sallimay waa ka gudubnay waxaan u keenay ciise oo ilaahay dhinaciisa fadhiyo wuxuu yiri ciise maana waa jirkiisa waa jirkii oo ku yimid waa okay oo ilaahay soo jirma ilaahay jirma aanu yiri hadda waxaan keenay ilaahay oo jir ah oo baybalka ku qoran marka habar yar waxaan ka rabaa laba arrin midood qormo oo su'aasha warka aad ku doodaysiin qabto baybalka iga siiya haddaa baybalka iga siisaan oo qormadana ay ka hor timaado waa laba qormo oo iska soo horjeedo laba qormo iska soo horjeedo haddii baybalka laga helana oo si toos isaga soo horjeedo tusaale kac iyo fadhiiso oo kaleeto waa laba shay iska soo horjeedo shaygaas wax ilaahay ka yimid ma aanan dhahaynaa haddii aad laga waayeyna teen qaadanaynaa qormadaanaan qaadana ra'yigiinana waa idinku ixtiraama waa ka baxay soo dhawow amaley abraham ku soco kitaabkii daa'uud zabuur buu ka hadlay maxaan ku yidhahdaa mar walba waxaa ogaataa maxaan ku yidhahdaa ninka la yidhahdo kamaal ilaahay inaanu annaga nala mid ahayn
oo jamiic sifaatihi in annaga oo kale aan ahayn haddii daa'uud uu yiri dhegihiisu ku maqlay maxaan ku yidhahdaaye ma aha jirka adiga aad taqaanid iyo waxa adiga aa xadidaysid sidoo aad arkaysid maxaa yeelay ilaahay xuduudaba asaa abuuray oo maxaan ku yidhahdaaye kaa'inaadkana asaa abuuray marka ha ku fekerin waxa maxaan ku yidhahdaaye daa'uud uu ku hadlaayo sida adiga fahamkaaga uu yahay iyo dhegaha adiga aad taqaanid sida qur'aankaba uu leeyahay laysa kamithlihi shay'un wax ilaahay la mid ah malaha taas waa wax fudud ka jawaabideedu ma aha maxaan ku yidhahdaaye micnaheeduna ma aha mutajassid oo sidii annagoo kale maxaan ku yidhahdaaye dhegale gacmale maxaan ku yidhahdaaye afle ma aha waa garataan u malaynaa taasi marka kumaba dheeraanayaba intaasaa kaga baxaa wax walba waxaan ku maxaan ku yidhahdaaye aan u dhaafaynaa ilaahay kan uu yahay marba la mid ma aha maxaan ku yidhahdaaye basharka iyo bini'aadanka iyo inta adiga aad taqaanid oo dhan waa ka duwan yahay laakiin hadda soo ma dhahaynin ciise soo ma dhahin kii aniga ay arkay ilaahay oo arkay ciise ilaahay markaas oo isku mid ma ahan aniga waxaan rumaysanahay ciise oo jir ku yimid ilaah oo jir ku yimid oo dadka u muuqday waaye oo maxaan ku yidhahdaa dadka dhex yimid qofka aniga ilaah buu arkay wuxuu u leeyahin waa sababtaasi ma aha maxaan ku yidhahdaa ilaahay annaga ma arki karno dhowr jeer kitaabka maxaan ku yidhahdaa bibleka sidoo dhibaatada haysato walaalaha oo markoodii hore backgroundka islaamiga ah dhibaatada haysato waxa waaye igana raalli ahaw waxay isku qasaan islaamka iyo kiristaanka laysa kamithlihi shay'un markaa leedahay iyo wax xadeynaya male markaad leedahay cidda akalos allah waaye ee kaaga ma ahan kaaga xadow leeyahay inuu xalleeya waxaa u daliila habar yar ii kaadi dee habar yar markaan qaata maxaa u soo booday markaan dhamaysta qaada habar yar anaa kaaga baxay waa kaaga baxay habar yar waa kaaga baxay markaan ku siiyey walaalkaad siisay marka walaalkii dhamaystoon qaatay oon damca inaa hadlana waa igu qabsatay min fadlaki habar yar okay aan dhameeyo marka walaalkii adiga ilaaha oo bibalka hadda aan ku arkoono waa shay muxadid ah oo ama wax koobayaan laakiin kan leeyahay laysa kamithlihi shay'un walaa yuxiiduuna bihi cilma kan leeyahay waa kan islaamka marka in la isku qaasa ma ahan midkan waxaa xadidaya shaygii oo saaraa shayu fuulay kuree baa la yidhaha luqa alcarabi waa baari kartaa naagtii jannado haddana bibalkana leeyahay oo koray okay wayna la duushay markaas ay la duulayso meelna wuu ka maqan yahay meelna waa la marsiinaa meesha lagula dhex duulaya ayaa ka weyn markuu ciise ku dhex jirana shay weyn ma dhex geli karo wax yar maroodi ma dhex geli karo dhalada goojada sababtoo ah maroodiga wuxuu ka weyn yahay dhalada waxa waaye dood maaha marka ustaad maya dood hadaysan quraan saar miya maya dood ma aha dood ma dooddeedii leeba xoojinayo soo dhegeyso ilaahay horta ilaahay awood ma u leeyahay maxaan ku yidhahdaa in maxaan ku yidhahdaa wuxuu doono ma samayn karaa ma u leeyahay wuxuu doono ma samayn karo wuxuu doono waxyaabaha mustaxiilaadka ilaahay ma iska baxay marka fiiri hadda marka maxaan ku yidhahdaa ilaahay wax kasta ma samayn karaa ya ilaahay wax kasta ma samayn karaa adiga wixii uu doono uu doono wuu samayn karaa soo maahan hadduu doono ma isdili karaa kow ma iska sii karaa maya wixii uu doonuu samayn karaa haddii uu doonaan ku iri ma isdili karaa ilaahay wuxuu doono inuu samayn karaan kugu caddaynaa ani calaashaan ilaahay wuxuu doono markaa tiraa waa kulliye waa qaacido kulliye ah haddii uu doono wuu isbaabi'i karaa gibigiis eber uu iska dhigi karaa soo ma ahan sidaas hadalkaaga ka dhalanayo dhegeyso soo mustaxiil kama aha walaal ilaahay horta dhimasho soo mustaxiil kama mustaxiil laakiin in maxaa ku yidhahdaa uu jir u qaato xataa bibalka saasuu ku leeyahay moogta ma inuu jir qaato maxaa mustaxiil ka dhigaya marka ii sheeg su'aal aad iyo aad u macaan waayo ustaad hadda ma kaaga jawaabaa marka wallahi billah ilaahan ku dhaarta qalbi daacadahan kaaga jawaaba waa su'aal aad iyo aad u habboon okay ilaahay soo kama aaminsanid walaal maadaama background islaamiya aad leedahay soo ilaahay kama aaminsanid inuu awal iyo aakhir yahay bilow iyo dhammaad inuusan lahayn soo kama aaminsanid yes okay soo ilaahay kama aaminsanid maxaa la yidhaahdaa inuu qadiim azaliya yahay weligiis jirina doono yes okay shayga qadiimka ah walaalkay falaasifadii gariiga ayaa waxay ku doodi jireen adduunyada waa qadiim maanta si fiican su'aal fiican oo waadixad i weydiisay si fiican oo daacadnimo leh oo aan ku faraxsanan kaaga jawaabaa marka oo ixtiraamna ku dheehan falaasifadii gariiga waxay ku doodi jireen adduunyadan aan ku noolnahay waxay leedahay waa azali waa qadiim male
bilow iyo dhammaad maanta mulxidiin joogta qayb ka midana way isku dayaan inay arrintaas sugaan waxaa soo baxay falaasifadii muslimiinta oo qaab caqli ah shubahadoodii u buriyey okay adduunyada markaas kadib aan ilaahay fahmaynaa fiiriya haddii adduunyadan maanta way isbedbedelayso ma ahan ya habeenaa imaanaya maalina imaanayso soo sidaa ma ahan waa sida okay shayga qadiimka ah walaalkay isma bedeli karo shayga qadiimka hadduu isbedelo oo sidii uu ahaa oo iska bedelo qadiimnimadiisii aa dhammaatay haddii qadiimnimada ilaahay ay dhammaato ama shay qadiimnimo oo aan qadiimnimadii u sugnayd haddii la waayo ilaah ma noqon karo okay marka si fiican oo mandiq ah aan kuu fahamsiinaa tusaale shaygan barafaan kugu fahamsiinaa tusaale ama shay qabow shaygan qabow waxaan dhahaynaa qabowga shaygan bilowna male dhammaadna male maxaa la rabaa marka maanta oo dhan inuu qabow ahaado soo lama rabo weligiis inuu qabow ahaadaa la rabaa soo maaha haddaan dhahno qabowgaanuu qadiim ku yahay haddaan dhahno soo lama rabo weligiis inuu sidaa u qaboobaado may arkaama jibinaya wada adig dhamaysa hadalka ka bax inay ifahamtaan rabaa dee maaha inaan ku gaadooyo hadda waxaan isla fahamsannahay isku waafaqsannahay ayaan kuu waadixinoyaa shuyuuqdii islaamkaa joogto 3 qof baa daawanaysa very sad weeyaan shashadanoo garaaca walaalaha kalaa imaadaan de meesha caawa dood waanay kullaataa ya maya yeesan naga kullaanin qaab qabuule aan ku wadanayna ustaad hal mid aan kuu sheegaa hadda markii aan qadiyad aan isku waafaqsannahay aan ka wada hadlayno ma aha marka bareega la kala gelayo ama dib u gurashada la kala gelayo ma ahan waxa aan isku khilaafsannahay markii la joogo aan isku adkayno laakiin shay aan isku waafaqsannahay markaan ka hadlayno waa inaanaan isku adkayna si caadi oo daacadnimo uga wada hadalnaa hadda markii doodaha waaweyn oo caalamiga adduunka ka dhaco markay doodayaan mulxidiinta islaamka iyo kiristaanka iyo yahuudda dadka aaminaada leh hal dhinacay ka soo wada jeedaan doodana way ka wada qayb qaataan ma aqaan inaa ogtihiin iyo in kale dad marka annaga iyo idinku aan ka dhex galo hooyo macaan walaashay macaan wiilkeedii ma ogoshahay diintan hadda catholic ee keen lagu leeyahay ibraahimiya waxaan hadda ay wareejinayaan islaamka muxuu ka qabaa kamaalo habar yar waa su'aal kale hadda waxaa su'aal ka muhiimsan ilaahay inuu jir kasta maxaa u diidaayo may taas waa ayaan rabaa inaan isla fahmno taas ka muhiimsan taasna waa kaaga jawaaba ilaahay idinki marxaba waa ballan marka ma wadnaa oo ma kuu sheegaa dhibaatada ka dhalanaysa haddaan dhahna ilaahay jir soo qaat ku soco dhamaysaha ha marka su'aalaha aan ku weydiina waa inaan isaga jawaabnaa maaha aniga dabin kulama maagani alle waa isla aaminsannaha qadiimnimadiisana waa isla aaminsannaha haddii la dhaho marka allah jir soo gashtay qadiimnimada qaabkii qadka uga baxaysaan rabaa inaan ku fahamsiiyo marka okay shaygan qabow haddaan dhahno qabowgan ayuu qadiim ku yahay waa inuu weligii qaboobaado soo ma ahan ha waa sax okay haddii uu kululaado shaygaas oo isbeddel uu ku yimaado qadiimnimadiisii wuu ka baxay sidoo uga baxay shaygan qabow marka uu kululaado wuxuu yeelanaa bardhammaad waxaa dhammaaday qabowgii wuxuu kaloo yeelanaa barbilaaw oo waxaa u bilowday kulayl sidaa darteed shaygaas isbeddelka ku dhacay ayaa wuxuu u diidaa inuu qadiim noqdo weligiis jiro sidaa darteed marka shayga qadiimka ah waa inuusan isbedelin baybalkana way ku taallaa ilaahay isma bedelo waana kaa sii doonaa insha allah okay waa qadiim ilaahay marka haddii aan dhahno maalinta sabtida ah waa qadiim tusaale haddii maalinta sabtida aan dhahno waa qadiim sabtidaas waxaa la rabaa inaysan dhammaanin hadday sabtida dhammaato oo ay axad bilaabato sabtigu qadiim ma ahan sababtoo ah way dhammaatay dhammaaday yeelatay haddana maxaa u bilowday maalin kaloo cusubaa bilaabatay sidaa darteed haddiiba shaygii isbedelayo qadiim ma noqon karo ama azali ma noqon karo ilaahay subxaanahu watacaala jala sha'nuhu wacama nawaali walaa ilaaha gayruhu xawaadiista kuma qumaan haddii marka ilaahay subxaanahu watacaala aad dhahdo jirow soo gashtay sidii markii hore uu ahaa ayuu maanta iska bedelay haddaad dhahdo isbedelkaas wuxuu yeelanaa bardhammaad oo waxaa u dhammaaday xaaladii hore markii hore ku sugnaa haddana waxaa u bilaabatay xaalad cusub oo dhar soo gashtay sidaa darteed marka shay oo xaalad isbedel ah ku dhacaayo ma noqon karo qadiim marka ilaahay isma bedelo intaas hadda ma isku fahamna beebalkana waa kaa sii karaa walaalkay haddaad jeclaysato insha allah
هاي ككين marka ككين بايبل sababtaan u diidaayay oo aan ku dhahaya marka ilaahay subxaana wa tacaala jir ma ahan waa sidaas ustaad waxa ay akhrisaa kitaabka ayuub allahu lmustacaan cutubka 26 qormadiisa 36 ama 36 26 ustaad maajid iyo akhri بايبل كبحاتي yacquub aan ku شوف yidhi هذا ustaad هذا 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 iska dhaaftan مين ayuub كان هذا yacquub لا kow هذا 17 كمان habar yar ايوه haye waa la hadlaa insha allah yacquub kow 17 ما قبطان به 17 akhri kitaabka yacquub kow 17 oo isagu isma bedelo nacam صح marka ani ma jawaabaa ma anaa habar jawaaba yaray mise jawaab waa maaha waxbaa la sharaxaya su-aal kuma aana weydiin habar yar abo kamaal adiga caawo inaa hadalba ii diidan tahay xaa kugu dhacay war habar ma yar baqay kuma ma baqay diidinaya ما هذا su-aasha هذا هذا ku day هذا waxaan dhahaa ninkan waa ما shiikh وحن ذكرتها waa nin yani culumta yani هذا islaamka yaqaana iyo جمال hada هذا afka ay xiran hay yar markii jaanis la siiya ma hadlayso dhibaatada jirtaa waxay tahay هذا مودك كبح هذا kitaabka yacquub cutubka koobaad qormadiisa 17 wuxuuna leeyahay ilaahay isma bedelo ilaaha daa'imka ah isagu isma bedelo waa sax sababtoo ah waa qadiim shayga hadduu isbedelo qadiimnimadiisi ayaa dhammaanayso wuxuu yeelanaa dhammaad iyo هذا أنا كنت صناعي ما وقتها سوقي صناعي عزبي صناعي أي أنت هركني هذا أنت أكل جاب كاجو maya inta وحكروا وقتها فيري adiga maxaan ku yiraahdaa kelimada ilaahay iyo ruuxda ilaahay waxa azaliga ahaa iyo waxa isku qaldaysaa jirkan maryama ka dhashay ayaa maxaan ku yiraahdaa walaal aniga jirka maryama ka dhashay ilaah maba waa aqaanba fiiri jirka maryama ka dhashay anigu ilaah maba waa aqaanba adiga waxaa igu tiri waay ilaahay inuu jir bani aadam soo qaato maxaa diidaayo marka sidaa igu tiri waxaan ku waxaa diidaayo qadiimnimadiisa qadka ka baxayso oo qadiim ma noqon karo sidoo soo noqon karin caqliyan kuugu cadeeyay shayga qadiimka ah hadii waxba ma ada cadeyn kamaal wax cadeysay ma leh may waa dhihi kartaa wax cadeysay ma laha maba fahmin waxa adi maxaan ku yiraahdaa hadda aad daldalaysi maanta maxaan ku yiraahdaa ilaahay maxaan ku dhahaa ilaahay shaygan waa qabow yahay qabowga iyo kuleelka khaaliqi abuuray waa qabow iyo kuleel si adiga maxaan ku yiraahdaa makhluuq khaaliqa inuu abuuro maxaa u daliila ana sheekada hadda kor u raraayo asaga abuuray maxaa u daliila wax walba asaga abuuray maxaa u daliila oo ilaahay maxaan ku yiraahdaa inuu wax abuuray ma maxaan ku yiraahdaa maxaa u daliila taas dood ma ahan dood ma ahan taas kaalama doodayno maxaa u daliila walaal maxaan ku yiraahdaa adiga khaaliq iyo makhluuq maxaan ku yiraahdaa ustaado fiiri aniga ma waxaan rabnaa wax maxaan ku yiraahdaa inaan naga dhaadhicsidaa waxa miitaal u soo qaadanaysidna waxa kaa'inaad makhluuqa waa waxa ku miitaalaysidna waa khaaliq laba la isfiirin karo ma xanaaqday abrahamo maya laba la isfiirin karo ma adiga ilaahay marka aan miitaal u soo qaadanaysid adiga ilaahaga misbedeli kara maya doodihii mulxidiinta waxay timid moogtaadi waxa u doodaysaa si aan maxaan ku rahin ahlul iimaan aan ahayn oo kale u doodaysaa oo maxaan ku dhahay mulxid ah maxaa dhacay iimaanka aqli kuma dhisna miya maya iimaanka aqli waa ku dhisay laakiin ilaahay iyo maxaan ku yiraahdaa oo khaaliqa iyo makhluuq se maxaan ku yiraahdaa adiga aad hal miisaan u wada saaraysaa yaa ku yiri hal miisaan wada saara hadda waxaad miitaalka aad soo qaadanaysid waa noocaas okay shayga sidoo qadiim ku noqon kara hadduu isbedelayo ii sheeg marka waa qadiim asagaa sheegtay inuu qadiim yahay weligiisa jiray weligiisana jiri doona okay asaga bas le sheegtay yaad ku aaminta miya laakiin caqli ma haysid hadda dhibaatada ku haysato walaalkay waxa waaye adiga aaminaadaada ma waxba dhiban ma haystaniyo maraaxidada iyo waxa la doodaysay la dood maxaan ku yiraahdaa fiir martiyaan ku naama illa falasifa iyo adilo maxaan ku yiraahdaa caqliga iyo waxa ku doodaysid waxay u egyihiin qof maxaan ku dhahay aan waxba rumaysnayn oo kale isada dada kaliga hadlaysa marka sideen u wada hadalnaa haddaan anaga hadli karin ay maanta dhan ameega haystay mugta ku dhigeysanay ay hadda qaado waqtigaaga marka soo dhigta isi okay yani ilaahay meesha waxa weeye ilaahay yani qaadir wax muu awooda nacam waa awooda yani quraanka wuxuu leeyahay kun fayakun isdilaabar yar ma awooda inuu isqarxiyo camal waye خلاص kamaal waa ka baxay su'aal idin weydiiyay ma ka baxay habar yar mayda waxaan ka meaning I will give you time يعني لبعض دقيقة يعني يعني وحواي كتابك وحوليه يكونوا قوامين بالقسط ولو على أنفسكم
qofka marka uu doodayo waxa waaye inuu horta cadaalad uu sameeyo oo uusan fiirin adiga maxaan ku yidhahdaa doodan ku adkaa ani maanta oo dhan waxaa qolkayga joogto oo idin ixtiraamayo idin dhegeysanayay wax walba oo aad sheegtaan oo idin dooda ku adkaa aayadda quraanka su'aalihi aniga aan ku markii la weydiiyey kama aadan jawaabin abraham kama aadan barya jawaabin inaad dhex galasho weeye intaasi maxaan ku yidhahdaa ixtiraam waa ii imaateen waxyar laakiin leele su'aalaha qaar waxaa la yidhahdaa su'aalaha qaar kama jawaabayo aniga waxaanan oga jawaabaynin ilaahay baa bay amray inaanan ka jawaabin ilaahay baa bay amray inaanan ka jawaabin su'aal walba intuu kugu amray ustaadow ilaahay su'aal ka jawaabin aan soo dhex intuu galay kugu amray kamaal gurigaadan ustaad meesha kugu amray ma ii sheegi kartaa may oo kamaal kugu su'aal lagu weydiiyaa ka jawaabin abraham qof baa maanta noo imaaday yani waa qof deef ah weeyaan wuxuu doonaa habreer adiga shaybaalan adigana dhex ku jira meeshuu doono fariisanay meeshuu doono seexanaya marka kamaal waa qof deef nooca wuxuu doono maanta ha yiraahdo wala ma yaqaan micno male habar maxaa ka wadaa deef ku soco kamaal meega adaa iskale caawa waxaa rashay najiib hal mar isiin adeer ii kaadi نعم نجيب أنا القسم محايا الملكي يلا ما وديف يجيب. ويان قلت هل مريك يعني تفضل يعني البيتنا ما فهمت habar deef ma iyo aniga kamaal waay ديف واتهاي قصة تهاي دي أقل كينياتي مسامح قرقينياتي ضيف ميا اوكي على عيني والراس نعم نعم ضيف marti waay nacam inaad ilaada u moodo deefna deef waa booda filinay ku jirta ma fahamto marka waa yaaba habar yar waxaa أهلا وسهلا هو مع habar waa mahadsantahay shukran lak لا مضن aad waa mahadsantahay walaalkay haddii la yiraahdo su'aal ma ka jawaabaya haddaa ay dhahdo ma kugu dirqinayo inaad ka jawaabto laakiin haddii aan su'aal ku weydiiyo hay dhihin ima weydii kartid maya su'aalaha ma soconayaan moogta ustaado ma hadalkayga dhamaysta haddaad ba isiisay su'aalaha iskama soconayaan maanta oo dhan moogta ani sida laba su'aalan ku weydiiyey su'aashii lixaad miyaa hadda toddobaad soomayga imaadan siinin mana dhibsatay okay wax yar aan hadlo fiiri haddaad tiraahda ilaahay waa qadiim inuu qadiim yahay waa inaad caddayn u haysaa haddaa i tiraahda ilaahay waa keligiis inuu keligiis yahay waa inaad caddayn u haysaa haddaa i tiraahda waxbuu abuuray inuu wax abuuray waa inaad caddayn u haysaa haddii aad ileedahay caddayn uma hayo ee sida mulxidiinta ha i weydiinin aaminaadan ku koobanahay aniga adiga marka farqiyaa noo dhexeeyo anigu wax kasta oo aan aaminsanahay caddayn adilo caqli ah ayaan ku sugi karaa mana ka hor imaan karto caqliga sababtoo ah waa xaqiiqadu caqliga kama hor timaado ama shayga runta ah okay intaa markii laga soo gudbo haddaa i tiraahda ilaahayaa qadiim ah dharowna soo gashtay oo jirow soo gashtay shaygaas jirka soo gashtay qadiim ma noqon karo awalan baybalkana wuu khilaafaa hadalkaas haddii aad baybalka keliya ku ekaano waree dhowkaada laakiin ma dhex baxaya wiilkan hadlaya hadaladiisa oo aad walaala ii kaade farxiyo miya فرحية كمال farxiyo waaye farxiyo manifesto abaa imuudkayga gal كمال كمال war walaalayaal inaa hadla iima ogolidiina saan yeelnaa marka laakiin hadallada uu ku hadlayo farxiyo manifesto abaa wax yar maa u kaadisi مانفست كمالو بالله عليك habar yar muudka wax yar aan dhameeyo farxiyo manifesto abaa imuudka wax yar gal why you saying that manifesto hadda waa magac wanaagsan anigu aqaana xumaan igama لا لا وخلط وين شيء خلط وين مانفستو fasirkeeda ma taqaan habar yar ابو ادي كمال حقيقه habar fasirkeeda ma taqaan mise waa kuu sheegaa انا اخانا مانفستو ونكسن maaha ma macnaha manifesto waa farxiyo faanta oo kale farxiyo kooko maya farxiyo faanta ma habar hadallada aad ku hadlaysa su'aalo ma kaa weydiiyaa waxaas ka baxa ku meeraysan hadalkayga markaan dhameeyo ayaa su'aalay horta maxaa la xanaaqsan هذا